السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جدكان تاجناهاي واجدك صدنك مقالة مقدشو إن البركة هرتدان تاجناهاي واد أركتان وحربا إن شاء الله مقال كان ما أنت إنه نقضه إن جدكان البركة كتاجا هذا إن جدك ودنها إلا ودد ودنها إن شاء الله عن إذن كوكو قبنايا أو جدكان رباسي توسا إن أدو أركتان ما دام مقال سجد مسترن عن هردين كجسو دوبين wadadu halkaan ka bilaabataa waad aragtaan wadadan waa wadooyinkii burburkii kadib aan la dhisinin wax dhismo ah ma aysan helinin laamiga hadda inta yar ee ka nool waa bacda 30 sano kadib burbur iyo maxaa la dhahaa dhibaato kadib saan u yaalaa lama dhisinin oo hadda wadooyinka nasiibka u yeeshay in la dhiso ma aysan noqonin laakiin waxaan rajaynaynaa wadooyinka hadda qorshaha ku jira inay number 1 ka noqoto maadaama aan ka kabsanay dhibaatooyinkii iyo burburkii iyo dowlad la'aantii alxamdulillah maanta aan nolosheenu ay degan tahay jawiga magaalada uu degan yahay wadadan waxaa qariyay oo duugay waa bacaad jidkan waad aragtaan dhismihiisu dhinacyada guryaha ka dhisan xoogaa way liitaan laakiin waxaad arki doontaan markii laamiga la saaro nin walba booskiisa wuxuu ka taagayaa dhowr biyano biidnillahi alkariim wadada marka hala yaabinina waxa waaye jidan aan 30 sano kadib aanan dayactir ama dhismo aanan helin uma liito qaybna bacaad baa duugay qaybna waa godad oo biyihii baa jaray horaan ugu soconaynaa waxaan macnaha dareemayaa wadadan inay xasuus hore ama idinku yeelan doonto muuqaalkeedu uu aad idin cajabi doono waayo waa wadooyinkii ugu mashquulka badnaa ama ugu isticmaalka badnaa xilliga hore maanta laftirkeeda waxaana loogu soo dhiiranaynin in la yimaado burburkaas ka muuqda saasay tahay maalmaha caadiga ah aad baa loo isticmaalaa laakiin maadaama aan inta badan muuqaalada jimca sameeyo sababta aan jimcaha u doortayna ay tahay dadka tiradooda yar bajaajyadiyo yar aan jimcaha isugu aadiye laakiin maalin caadiya wadada maba inaan arki lahaynba 150 bajaaja ka hormareyso 150 way ka dambaysaa marka waxaad nasiib u yeelanaynin inaad dadka mutusiso muuqaal dhameystiran saa darteed zaxmadu iyo kawaarida ama bajaajyadu aad bay u yar yihiin maadaama maalin nasiina ay tahay jidkan waxaan niri waa wadada waxaan kasoo leexana albarako waxaan usoo leexana dhanka iyo masaajidka Sheekh Cali Suufi hore waxaan idin tusiyay African Village oo aan xaafadeeda aad idin tusiyay maasha Allah commentiyadiina waan arkay waa maasantihiin marka hadda xaafad ma galayo horaan u soconaya ilaa jidka Sodonka aan ka istaago insha Allah ilaa jidka Sodonka iyo wadadan kulay waxa waaye wadadan warshadaha iyo jidkan Sodonka jidkana isku xira oo maasha Allah wada toosan oo cabira oo aan luqluq lahayn ah maadaama ay wadadani wadooyinka muhiimka ah kamid tahay waxaan rajaynayaa in qorshooyinka wada dhiska wadooyinka ugu horeeya ay noqoto hadda waxay dhismo ku socotaa dhammaan jidadka magaalada Muqdisho waa maasha Allah dhismooyin badan ku socda laamiyadii dhibaatada iyo mashquulka iyo daahitaanka ardayda ilaaha uga gargaaray jidka hadda waxaa dhismo ku socdaa kasoo tagay taraqii sigaarka ee baar wax toos u imaanay insha Allah asagana laamiga marka la furo ee xariga laga jaro biidnillahi alkariim waad arki doontaan kana waxaan rajaynayaa inuu dhismo kaalamida uu helo maadaama uu yahay jid halbowle ah wadadan waxyaabaha hadda aniga aan idinkaga sheegi karo waxay tahay inuu ku yaalo macad weyn ee macadka Imaam Shaafici xaruntiisa qayb kamid ah inta ku taalo waa macaahida ama iskuulada wadanka ugu caansan iskuul kamida degmo walbana ku leh xarun jidkan marshabiyeedkiisa wali waa nool yahay waad aragtaan macnaha waxaan maleynayaa dhismahan haddii wadadan dhismaheeda hore kale ay hesho maasha Allah tabaarakallah say ku burburta aad bay u adkaanaysaa
waa kana iskuulkan idin sheegay derbigan ka bilowda iridiisa weyn waa taa ilaa intaa uu sii maxaa la dhahaa dhisan yahay. madrasatu imaam shaafici waad aragtaan waa dugsi hoose dhexe sare. alcilmu nuur, aqoontu waa nuur. ما شاء الله تبارك الرحمن. waxaa halkaa nooga muuqdo waa masaajidkii Sheekh Cali Suufi raximahullahu tacaala. anaga laakiin ahmiyadeena waxay tahay inaad wadadan si toos ah aan ka gambasho lahayn aad u aragtaan. kun caaliman aw mutacalliman walaa takun thalithan. noqo mid wax barta ama mid dadka wax bara laakiin ha noqonin ma la yacni walaa takun thalithan waxay ka dhiganta qof micnaha aan waxna baranin dadkana wax barin. dee waa qof bilaasha. marka qof bilaasha weligaa ha noqonin. noqo qof ama ummadda wax tara ama wuxuu ummadda wax ku tari lahaa baranaya. ama maadi ama sharci waxaa rabtid baro laakiin wax un baro. aas-aaska diintana waa qasab inaad inta muhiimka ah oo salaadaha iyo waajibaadka adiga 5 rukni inaad mid walba taqaanid waa aham shay. jidkan wuxuu ka tirsan yahay ama wadadan waxay ka tirsan tahay degmada Hodan. waayo degmada Hodan aad bay u weyn tahay. degmada Howlwadaag aa dhinaca ku hayso. Howlwadaag adiga waxaa kala bara iskuuska Balaxi wixii dhanka ka ahna waxaa la yiraahdaa Howlwadaag. dhinacan waxay ka soo ahna waxaa la dhahaa Hodan. marka wadadan waxay ka tirsan tahay degmada Howlwadaag. cafwan degmada Hodan. Hodan ay ka tirsan tahay waa degmada Hodan. wadaha aad dalbanaysaan oo aan komentiyada ku arkay waxaan idinka codsanayaa xaafad bas inaynan soo qorin laakiin aad soo raacisaan degmada iyo waxay caan ku tahay. li'annahu xaafaduhu isku magac bay noqon karaan ama aniga ma garanayo meelaan u wajaho laakiin haddaad xaafadda magaceeda iyo degmaday ka tirsan tahay iyo wadooyinka qaar ee caanka ah aad wax uun ka tilmaamtaan waan isku dayayaa. laakiin xaafad hebel soo duub haddaa iska tiraahdo way ugu adkaanay wallaahi waxa waaye aaday ugu adkaanaysaa. laakiin haddii aad samaysaan degmada iyo xaafadda iyo wax oo dhan aad is soo raacsisaan way noo fududaanaysaa inaan raadino ama aan tagno. laamiga intaan yar ee masaajidka hormarsan xoogaa wuu ka roon yahay oo ma burburka saa'idka ahay ma qabo waad aragtaan. alxamdulilah masaajidka ilaahay baa ku sharfan. masjidka hortiisa sida ay nadiif u tahay wadada inteeda kale u burbursan tahay walaa wax lala yaabo waa wax cibro qaadasho mudan. li'annahu wadada isku si baa loo isticmaalayay. masaajidka hortiisana waa kaasa ilaahay marka abyaadiisa ama beedad guryihiisa way ka qiimo badan yihiin guryaha caadiga ah. waad aragtaan burburka wuxuu ka bilowday masjidka markii lasoo dhaafay. alxamdulilah muuqaalku noo dhamaystirmi rabaa oo hadda wadada aan soo istaagnay jagjagtana ka raali noqdo waxa waaye dhulkaa sida ah. kaamiradu haddii meesha saa'id jagjagteeda ee taayadana waa laga dareemaya xoogaa gariir ah ka raali noqda. iskooska aan taagana iskooska Sheekh Cali Suufi aa lahaa masaajidkana loogu magac daray. jidka hore aan kasoo tagno wuxuu ahaa Albarako. wadada hadda aan macnaha jidka Sodonku ahaa kan hadda aan imaanana waxa waaye jidkii wadnaha iskooska masaajidka Sheekh Cali Suufi raximahullah. insha Allah bilkariim waxaan rajeynayaa muuqaalkan inuu aad idin cajabiyay oo aad uga hesheen anigana sidoo kale aad baan uga helay marka aan sameynayay wuu cajabiyay. gawaaridan aad arkaysaan waa la baakimaa kulley hal mar la sii daayaa meeshaan iska soo istaagayaan bacdeen ilaa ya way tixnaanayaan. wadadan waa wadada ugu jaamka badan habeen iyo maalin. wadadan ayadoon jaam ahayn ma bal arko iskooska Bakaaraha wallahi xiisa ma ku qabanaa inaad soo aadid. jidkan haddaa iskooska Bakaaraha dan ka yeelatid lugaa ku soo tashanay ma ku tashanaysid inaad gaari caadi oo ugu marto. waxa waa wadada ugu jaamka badan ayadoo jimco ah maanta haddaa dhanka Bakaaraha idin leexiyo tatacajabuun waad la yaabaysaan wallahi. marka waxa waaye wadada ugu jaamka badan waa ilaana waa wadada ugu ganacsiga shaqada badan. gawaaridan hadda way iska soo xirtaanba waa taagtaagan yihiin ardayda si ay u inkaarayaan ma maleyn kartid 5 maalin. marka aad iyo aad ugu mahadsantihiin daawashada muuqaalkan aad daawateen like saara sii share gareeya
fikradaha iyo degmooyinka iyo xaafadaha rabtaan komentiyada noogu soo qora. shukran lakum, wassalaamu calaykum waraxmatullahi.